waxaa sharaf noo ah inaan maanta xafladan qiimaha weyn aan joogno oo isdhaxgalka ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada Turkiga marka waxay noo soo bandhigeen wax aad iyo aad u qiimo badan oo Soomaalida dan ugu jirto waaye Soomaalida inay helaan dad ganacsatada Soomaaliyeed oo wax ka gadan karaano rugni asaasi waaye markii la dhahaa mobiliya ama alaabaha guryaha guriga marka qofka dego ugu horeyso Kristo waxa ugu horeeyo qaadanayo waa qalabkan marka inaan maanta aan helno shirkad noocan oo kale aad u qiimo badan aan helno waa wax aad iyo aad loogu farxa annagana ka safaarad ahaan ama ka qayb ganacsi ahaan waan soo dhaweyneynaa horumarkan ganacsiga balaaran oo maalinba heer yeelanayo inaan maxayd goobjoog u noqono maanta hadaynu helnay dad qof aynu waryaha ka oranayno ila ka waleynooga turjumayay waxay ila noqonaysaa inaynu maanta aynu guul gaadhnay insha Allah waxaan inoo rajaynayaa inaynu meel kale aynaan ku xidhnaan doonin inagoo iska celinayna ila weynankeenii